Asalaamu calaykum dhammaantiin soo dhawaada saaxiibayaal waxaa horey noogu socda casharadeenii ka midka ahaa asaasiyaadka ee barashada cilmiga forex halkan maanta waxaan kusoo gudbinayaa waa maxay bullies and bearies. Bullies waa suuq jiha kore ku socdo long term ama uptrend. Haddaad aragto ereyadan waa erey suuqeed saddexdan ereyba waa erey suuqeed oo hal micno wata. Bullies, long term iyo uptrend hal erey ayay isku yihiin waana suuq buy ah ayaa waxaa la yiraahdaa dhammaantood marka la isku daro waxay noqonayaan bullish market. oo bullies waa suuq jiha kore ku socdo long term ah oo uptrend ah suuqaas lagu galo buy. sidee looga faa'iidaystaa markuu suuqu jiha kore ku socdo oo bullies yahay? jiha kore marka uu suuqu galayo tradersku waxay raadiyaan meel ay suuqa ka galaan oo loo yaqaano entry. markaad suuqa galaysid oo uptrend yahay oo aad rabtid inaad buy ku gashid iska geli maysid suuqa. sidaan arki doonno waxaad raadinaysaa entry meel suuqa aad ka gashid oo ku habboon markaas ayaad suuqa ka samaynaysaa profit. okay waxay raadiyaan meel ay suuqa ka galaan oo entrygaas oo lacagtaas ayay soo iibsadaan ayagoo ka filayo in qiimaha lacagtaas uu sare u kaco. markuu suuqu yahay bullish market ama uptrend long term uu yahay suuqa jiha kore marka uu ku socdo intaba waa hal erey oo qof waliba siduu doono ayuu u isticmaalaa. jiha kore suuqa marka uu ku socdo uu uptrend yahay waxaad raadinaysaa entry meel aad suuqa ka gashid kadibna lacagtaas ayaad buy ku galaysaa oo waxaad ka filaysaa qiimaha markii for example halkan oo kale uu marayay in uu sare u kaco qiimihii ilaa iyo intaad la socotid oo biib ayaad markaad suuqa ka faa'iidaysaa. oo suuqa uptrend markuu yahay waa suuq long term ah oo sare ayuu u socdaa. intaas waxaan rajaynayaa anigoon kugu badinin videoga iyo warka anigoon kugu badin inaad fahantay ayaan rajaynayaa. ka gudub waxaan hadda u gudbaynaa waa maxay bearish. bearish ereygan asagana waa bilcagsigiisa oo waa suuq hoos u socdo. waa jiha hoose suuq u socdo oo sell ah waxaa loo yaqaanaa short term ama suuq down trend ah. tradersku waxay raadiyaan waa bilcagsigeeda suuqii kor u socday iyo hoos. suuq wuxuu ku socdaa kor hoos iyo sideways ama correction consolidation range waxaa doontaba tiraa. tradersku waxay markuu suuqu yahay bearish ama short term sell ah downtrend markuu yahay suuqu tradersku waxay raadiyaan meel ay suuqa ka galaan oo mar waliba waxaa qasaba inaad heshid entry point oo aad suuqa ka gashid. lacagtan downtrendka ah tradersku way iska iibiyaan lacagtan ayagoo ka filaya in qiimaha lacagtan uu hoos u dhaco. lacagta qiimaha markii bearish marka uu yahay suuqu uu bearish trend uu ku jiro waa suuq bearish market ah ma downtrend. suuqan jihada hoose ku socdo waxaa loo galaa sell ayaa loo galaa. sell sababta a ugu galaysid waxa weeye waxaad filaysaa qiimaha lacagtan maadaama uu bearish yahay suuqan oo qiimo hoos u socdo lacagtan ay hoos u socoto waxaad ku galaysaa sell oo waxaad rajaynaysaa in suuqan hoos uu usii dhici doono oo qiimaha lacagtaas ay awoodeeda sii yaraan doonto ay hoos aadi doonto. adigana intaad la socotid meeshaad ka gashay ilaa iyo meesha aad uga baxday faa'iido ah ayaad suuqa kala tegaysaa oo aad ka helaysaa. marka short term bearish market downtrend waa suuq mar waliba sell ah oo suuqan tradersku way sell gareeyaan waxaana muhiim ah inaad heshid entry point inaad heshid. intaas inaad fahantay oo ay kugu filan tahay ayaan rajaynaya. haddii aadan fahminna mar labaad video kusoo cesho mar saddexaad kusoo cesho waxaa lagama maarmaan ah oo aan hubaa in aad fahmi doontid ugu dambayn. okay halkan asagana waxaan kusoo gudbinayaa range correction ama consolidation waa maxay micnahooda. waa hal erey oo qof walba wuxuu ku dhawaaqay range waayuu leeyahay
mid wuxuu leeyahay waa correction, mid consolidation. adigu ha ku wareerin erayadan saddexdan erayba waa isku mid. waa suuq jahwareer ku jira ama nasasho ku jira. suuq ku jiro suuq nasasho ku jiro oo sugayo jiha ama break out sugayo ayaa loo yaqaanaa range, correction, consolidation. waa hal eray oo koox weliba ay magac u gaara u bixisay oo adiga markii aad maqashid suuqan waa range market, correction, consolidation inaadan ku wareerin oo aad u fahantid inuu hal eray yahay. sababta loola jeedana uu yahay suuq nasasho ku jiro oo aanan uptrendna ahayn, downtrendna ahayn, oo ku jiro jahwareer sugayana jiha suuqaas loo buush gareeyo oo break out sugayo in uu yahay in aad fahantid ayaa muhiima. hadda kadib range haddaad maqashay, correction iyo consolidation inuu hal eray yahay oo laga wado suuq nasasho ku jiro oo aanan jiha lahayn, jihada suuqaas loo jabsadana aad u raaci doontid ama uptrend ama downtrend. intaas inay kugu filan tahay ayaan rajaynayaa. halkaana waa sawir gacmeed aan sawiray oo suuq uptrend ah oo bullish market ah sida uu u eg yahay ama sida loo sawiro. uptrend suuqa markuu yahay bullish market waa suuq jiha kore ku socdo. jiha kore suuqa markuu ku socdo waa uptrend bullish market, waana lacagtaas lacag la buy garaynayo waaye oo suuq buy loo garay. suuqa halkan markuu ka dhaqaaqay oo impulsive-kan sameeyey muxuu galayaa correction ama range ama consolidation. saddexdan waa isku mid, waa suuq correction ayuu galayaa. correctionkaas markuu galo maxaad raadinaysaa oo aan markii horeba theory ahaan kor aan uu soo baranay entry point inaad halkaas ka raadinaysid. halkan ayaad ka raadinaysaa entry ayaad halkaas ka raadinaysaa. entryga halkan markaad ka raadiso suuqa maadaama uu uptrend yahay uu bullish market yahay waxaad adiga filaysaa in suuqan uu jiha kore ku socdo oo kor u sii socon doono. halkan entrygaaga markii ay noqotana kor ayaad suuqa u raacaysaa. impulsive-kaas kadib haddana suuqii nasasho ayuu gelayaa. correctionkan dabadiisna uu sii dhaqaaqayaa oo impulsive xoogan ayaa dhacayo. mar weliba oo suuqa correction samaynayo ogow suuqa correction markuu samaynayo waa fursadda adiga aad haysatid oo dahabiga ah. impulsive-kan markaad aragto suuq impulsive ku socdo ha raacin haddaadan samaynaynin bending order oo ah buy stop halkaas inaadan dhiganaynin ama halkan oo kaleeto buy stop aadan dhiganaynin oo markaas suuqa aad jihadaas aad usii raacaynin oo marka horena aad ugu talagashay oo isbaaradaadii aad dhigatay buy stopkeed buy sell limit iyo buy limit, buy stop iyo sell stop. cashirka xigo ayaan ka dhigan doonaa waana soo wadaa iga suga hadduu ilaah yidhaahdo. haddana waxaan baranaynaa uptrend iyo downtrend. okay halkan markaad ka gashay entrygaadii impulsive-kana baxay, correctionkan suuqii wuu ku sugay. halkan haddana entry kaleeta ayay kuu noqonaysaa. halkan waa entrygaada entrygaada meesha markaad ka qaadatay haddana suuqii waa buy garaynaysaa oo lacagtan waa soo iibsanaysaa. buy macnaheedu waxa weeye lacagta waad soo iibsanaysaa. lacagtan buy markaad leedahay sell iyo buy inaad fahantid ayaa muhiima. downtrend iyo uptrend intaan haddaad fahantid waxaan rajaynayaa inaadan u baahan doonin mar kale inaad qof weydiisid sell iyo buy maxay yihiin, lacagteen iibinaya, lacagteen iska iibinaya, uptrend iyo downtrend muxuu yahay, bullish iyo bearish muxuu yahay. halkan ayaan kusoo gunaanadayaa. halkan ayaadna uga wada badanaysaa hadduu ilaah yiraahdo. okay uptrend iyo bullish marketka waa suuq uptrend ku socda oo jiha kore ku socda markuu yahay waa bullish market. suuqa markuu yahay jiha kore markuu ku socdo suuqu waa bullish market, waa uptrend suuq ah oo long term ah. intaas waa hal eray inaad si fiican u fahantid ayaan rajaynaya. long
term ayaa halkan ka maqan waa erey asagana jiha kore loo isticmaalo waa long term intaas ayaan kusoo gabgabaynayaa uptrend waxa uu yahay downtrend muxuu yahay asagana downtrend waa bilcagsigiisa oo waa suuq asagana jiha hoose ku socda suuq jiha hoose ku socda ayaa waxaa loo yaqaanaa downtrend ama bearish market suuqaana waa la selgareeyaa oo sel jihada ah ayaa loo galaa oo jiha hoose ayaa loo galaa okay halkan markii uu kasoo bilowdo suuqa uu sameeyo impulsivekan wuxuu samaynayaa nasasho correction consolidation range waxaa doontaba dheh kadibna intrigaada ayaad halkan ka raadinaysaa oo suuqa waad sugaysaa suuqa waa inaad patient u noqotid qofka suuqan ku degdega ee iska qaata trade walba waa suuq qofka si sahla uga baxa kadibna yiraahdo forex lacag lagama samayn kare waa khasaaro laakiin markaad consistency noqotid qof adiga suuq inaad sugtid ilaa uu kaaga imaanayo suuqa markii uu confirmationadaada kuu dhameeyo uu correctionkaaga aad dhigatid kor iyo hoos oo aad aragtid 1 2 3 inuu kuu sameeyey kadibna intrigaaga soo qaado risk entry reduce risk entryna asagana waan ka hadli doonaa noocyada intriga uu kala baxo kadibna impulsivekan hoose ayaad soo raaci doontaa haddana suuqu wuxuu samayn doonaa nasasho correction ama consolidation range waa hal erey waxaad doontaba adigu ugu wac kadibna waxaad raadin doontaa intri kale oo aad suuqa ku selgaraynaysid waxaadna u soo raaci doontaa hoos oo lacagtan mar waliba waxaad filaysaa qiimaheeda in uu hoos usii dhici doono oo ay ku jirto bearish market meesha jihada suuqa lambarka aad ka gashay oo entry pointigaaga ahaa ilaa iyo meesha aad suuqa uga baxday inta biib uu yahay ayaad xisaabsanaysaa intaas ayaadna suuqii faa'iida ah kala baxaysaa waxayna ku xiran tahay mar waliba lot sizeka aad isticmaalaysid iyo entry point meesha aad suuqa qaadatay waxaad arkaysaa mararka qaar lacag qof kalena profit u wado adigana minus ugu wado maxay ku dhacday suuqan lacagtan jiha hoose ayay ku socotaa waa lacag sela adiga minus kugu haysaa saaxiibkaana profit ayay u wadaa sababtaas waxay tahay intriga aad ka qaadatay ayaa ahaa mid qaldan oo intri qaldan ayaad markii horeetaba suuqa ka gashay isagana waxaa laga yaabaa intrigii hore oo suuqii meel adiga kaa horreysay inuu kasoo galay oo intrigii saxnaa uu soo helay adigana intrigii hoose ama intri qaldan inaad suuqii ka gashay kadib waxay kusii xiran tahay lot sizeka adiga aad isticmaalaysid haddii adiga lot sizekaaga uu aad u weyn yahay qofkana lot sizekiisa uu yar yahay khasaaraha adiga ay kugu hayso oo ah mid aad u weyn asagu waxay ku haynaysaa ama waxay u wadaa profit ama waxay ku haysaa minus yar taasna waa inaad kala fahantid intriga waa muhiimadda suuqa laga galo oo ama faa'iido ama khasaaraba lagala kulmo waa meesha aad suuqa ka gelaysid iyo meesha aad suuqa uga bixisid taasna dib ayaan uga hadli doonaa mar raba inaan idinku sii dheereeyo muuqaalka halkan waxaan ayadana kusoo gudbinaya kusoo gaabinaya range correction iyo consolidation micnahooda maxay yihiin erayadan sideena ku ogaadaa suuqa inuu correction ku jiro inuu range market yahay iyo consolidation inuu suuqa ku jiro sideenu ogaadaa suuqa mar waliba uu impulsive dhaco waxaa dhaco correction ayaa dhaco suuqu nasasho ayuu galaa suuqu wuu neefsadaa neefsashada suuqa uu neefsanayo ee uu nasanayo ayaa waxaa loo yaqaanaa range correction consolidation waa saddex eray oo isku mid ah midaad doontaba adigu ugu wac waa suuq nasasho ku jiro oo aanan jiha lahayn sideways ayaa lahaa oo suuq aanan jiha lahayn oo dhinac oo u socda aanan jirin laakiin nasasho ku jiro oo sidaan ah suuqa markuu sidaan yahay ogow faa'iido aad u weyn ayuu soo wadaa suuqa markaas wuu ka faa'iido badan yahay marka suuqa impulsive uu ku socdaad aragtid impulsive suuq ku socdaad aragtid ha gelin sug 1 hour correction 1 hour ama 15 minute correction inaad sugtid kadibna intrigaada risk intriga reduce risk intriga meesha doonta aad ka qaadatid kadibna lacagtaas jihada ay u socdo oo down trend ama up trend ah aad raacdid waa taas sida aad ku kala ogaan kartid
suuqa faa'iidada halka aad ka helaysid iyo halka khasaaradaada uu jiro. Kaba soo qaad suuq halkaan markuu marayay, halkaanad ka soo qaadatay, waxaad tiri suuq seelan ku gelayaa, wuu kula laabtay meeshii, waad cabsatay, waxaa is tiri suuqii waxaa waaye jihadeydii muusan aadin, waa hadduu minus igu bilaabay, haddana maxaa dhacay? Suuqii halkaan imaaday, halkaan haddana correction kasii galay, wuu sii dhaqaaqay. Marka mar waliba trade-ka waxaad uga cabsanaysid ogow, oo jihada waa fudaydka marka hore aad ku qaadanaysid trade-ka. Trade-ku sug ha dhamaysto, ha isi soo saxo, suuqa 3 taabasho correction-ka ka raadi, 2 touch 3 touch ka raadi, double top iyo double bottom sida correction-ka qaabku u sameeyo fiiri, waa ka hadli doonaa ayadana, muuqaalaan ka samayn doonaa. Kadibna entry-gaaga meesha ugu wanaagsan ka qaado, risk entry-ga ka qaado ama reduce risk entry-ga ka qaado. Entry-gana labadan entry-na waxay u kala baxaan ayadana waan ka hadli doonaa, cashir ayaana ka samayn doonaa. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu si aad iyo aad kuu anfacay, wax badanna aad ka faa'iiday. Haddii aad muuqaalkan wax badan kaa caawiyay, qaybta commentiga hoose noogu soo reeb. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.